fadhigii saaka ee golaha wakiilada Soomaaliland oo shirgudoominaya gudoomiyaha golahaasi Baasha Maxamed Faarax ayaa mudanayaasha waxa lagu qaybiyay xeerka maareynta qashinka oo ay soo gudbiyeen gudida golahaasi u qaabilsan deegaanka markii loo qaybiyay mudanayaasha xeerkaasi ayaa waxa faahfaahin ka bixiyay xeerkan iyo sida ay Soomaaliland ugu baahan tahay gudoomiyaha gudi hoosaadka deegaanka ee golaha wakiilada Xildhibaan Saciid Warsame Ismaaciil gaane waxaanu yiri deegaanka xeerarka dabiiciga xeerka maareynta qashinka adkaayo dareeraha guddigu markuu arkay dhibaatada caafimaad ee deegaanka dhaqaale ee ka dhalan karta qashinka haddii aan si habboon loo maamuli karin markuu aqoonsaday baahida loo qabo soo saarista xeer dhammaystiran oo qaadeeya maareynta qashinka adag iyo dareeraha kaas oo qeexaya ururinta qashinka harinta qaadinta farsamaynta iyo burburinta qashinka markuu garwaaqsaday haddii ay suuragal noqoto in laga qayb geliyo shirkadaha gaarka loo leeyahay si loo gaaro ujeedooyinka xeerkan waxaa guddigu soo gudbinayaa xeerka maareynta qashinka adkaha iyo dareeraha kaas oo ka kooban 35 qodob 35 qodob ee xeerku ka kooban yahay waxay inta badan saarayaan sidii loo ururin lahaa sida habboon ee loo ururiyo qashinka iyo kala saarista qashinka iyo qaabka loo burburinayo najaxadan onaaye oo Cable TV Hargeysa.